Dagaalkii labaad ee Maane. Taariikhdu markay ahayd 15 bishii toddobaad 1918, dowladdii Jarmalku waxay qaaday dagaalkoodii ugu dambeeyay waxayna weerareen ciidamadii Faransiiska. 85,000 oo askari oo ah ciidamada Mareykanka ayaa dagaalka ku soo biiray iyagoo caawimo siinayay kuwa Faransiiska. Sidoo kale, ciidamada gurgure ee dowladda Ingiriiska ayaa iyaguna dagaalka ku soo biiray dhinaca Faransiiska iyagoo dagaalka ka soo biiray. Dirirtan oo la magac baxday dagaalkii labaad ee Maane. Maane wuxuu ahaa webi ku yaalla caasimadda Faransiiska ee Paris meel u dhow, maadaama dagaalkani uu ka dhacay halkaasi, sidaasna loogu magac daray dagaalkii Maane. Gaashaanbuurtii wadamada Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska ayaa dagaalkaasi ka gacan sarreeyay ciidamada Jarmalka, waxaana ciidanka Jarmalka laga soo saaray fadhiisimadii uu ka haystay ciidanka Faransiiska. Kadib markii khasaare aad u ballaaran ay ciidamadii Jarmalka ka soo gaadhay dagaalkii, dowladda Jarmalku waxay qaaday qorshe kale oo weerar ay ku qaadayso waqooyiga fog, Flanders oo waqooyiga dalka Belgium, qaybta Af-Dutch-ka lagaga hadlo ama Af-Dutch-ka. Ciidanka Jarmalka ayaa isku ballaarinayay inta u dhaxaysa Faransiiska iyo Belgium-ka. Weerarkan ayaa ahaa kii u dambeeyay ee ciidamada Jarmalku ka rajeynayeen inay guul ka gaadhaan. Hirarkii dagaalka labaad ee Maane ayaa guusha aadisay dhinacii gaashaanbuurtii Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska ka koobnayd, waxaana ciidanka Jarmalka ka qabsadeen in badan oo ka mid ah dhulkii Faransiiska iyo Belgium-ka uu ka haystay ciidanka Jarmalku. Waqtigii uu bilowday dagaalkii koowaad ee adduunku, ciidamadii madowga ahaa ee militariga Mareykanka ku jiray waxay ahaayeen 4 guuto. Guutadii 24aad iyo guutadii 25aad oo ahaa ciidamada lugta ama infantry-ga. Guutadii 9aad iyo guutadii 10aad oo ahaa ciidamada fardooleyda ahaa. 4tan guuto ayaa ka soo qaybqaatay dagaalkii uu Mareykanku soo galay ama dagaaladii uu Mareykanku soo galay, sida dagaalkii Mareykanku la galay Spain sanadkii 1898. Intaa kadib 1917 militarigii Mareykanku wuxuu sameeyay 2 guuto oo cusub oo ka koobnaa askar madow ah. Labadaasi guuto ayaa kala ahaa guutadii 92aad iyo guutadii 93aad, kuwaasoo noqday kuwii ugu horreeyay ee dowladda Mareykanka u dirto inay ka soo qayb qaataan dagaalkii koowaad ee adduunka. Labadan guuto ayaa ka qayb ka ahaa iska horimaadyadii gaashaanbuurtu kaga hortagaysay ciidankii Jarmalka ee dabayaaqadii dagaalkii koowaad ka dagaalamaya inta u dhaxaysa Faransiiska iyo Belgium-ka. Kadib markii uu dhammaaday dagaalku, waxaa labada guuto ay ku soo laabteen dalka Mareykanka. Sidoo kale, waxaa jiray ciidamo ka soo jeeday waddanka Senegal oo ciidamada Faransiisku qaab gumaysi ahaana ula socday dagaalkana dhinacooda kaga jiray. In ka badan 350,000 oo askari oo African American ah ayaa dagaalkii koowaad ee dunida siyaabo kala duwan uga qayb qaatay. Dayrtii 1918, wadamadii Central Powers-ka la isku odhan jiray ee ay ka mid ahaayeen Jarmalka iyo Austria waxay iskaga baxeen dhammaan furiimihii dagaalka, marka laga reebo boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo iyaguna Central Powers-ka ka mid ahaa, kuwaasoo dagaalkii Gallipoli ka gaadhay guul ballaaran. Walow boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay markii dambe soo wajahday burbur ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha ah, oo ay sabab u ahaayeen kacdoonkii Carabta iyo weeraradii gaashaanbuurta ku qaaday Turkiga. Sidaasina, dowladda Turkigu waxay dabayaaqadii bishii 10aad sanadkii 1918 gaashaanbuurta ee dagaalkiisa ka soo horjeedeen la saxeexdeen heshiis nabadeed. Heshiiskii Treaty of Versailles. Heshiiskii Treaty of Versailles wuxuu dhacay 28kii bishii 6aad sanadkii 1919. waxaa la soo gaaray dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka bishii koowaad ee sanadkaas 1919. 32 dal ayaa isugu yimid magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska si ay uga shiraan heshiiskii loogu soo afjari lahaa dagaalkii koowaad ee adduunka. Shirka heshiiskan lagu gaadhay ayaa wuxuu ka qabsoomay qasri lagu magacaabo Versailles Palace, waana sababta loogu bixiyay heshiiskii Versailles. Shirkan waxaa hogaaminaya ama ugu tun weynaa 3 hogaamiye oo kala ahaa David Lloyd George oo ahaa hogaamiyihii boqortooyada Ingiriiska, George Clemenceau oo ahaa hogaamiyihii Faransiiska, iyo Woodrow Wilson oo ahaa hogaamiyihii Mareykanka ee waqtigaas. Dowladda Jarmalka laguma casuumin shirkan, kaliya 3dan hogaamiye ayaa ka wada xaajoonaya sidii loo ciqaabi lahaa Jarmalka. 3dan hogaamiye ayaa mid kasta soo bandhigay wixii uu heshiiska ka doonayay, iyagoo mid kasta doodiisa uu ku salaynayo dhibaatooyinkii ama khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii koowaad intii uu socday. Waxayna ugu dambeyn 3dan hogaamiye ku heshiiyeen xalkii.
qaar ka mid ah wadamadii shirkaasi ka soo qayb galay ayaa dagaalkii koowaad ee adduunka ku magacaabay dagaalkii ugu dambeeyay dagaalada. Laakiin heshiiskan la magac baxay Treaty of Versailles oo qabsoomay 28kii bishii 6aad 1919 ma aanu noqon mid aragtidaasi ka dhabeeya. Qodobadii ka soo baxay shirkaasi waxaa loo soo bandhigay dowladda Jarmalka iyo dhinacyadii kale ee xulafada la ahaa. Jarmalka oo aan markii hore shirka lagu casoomin kana qayb qaadan qodobada heshiiska ee ku qasbanaaday inuu saxeexo heshiiskan Treaty of Versailles la magac baxay. Dowladda Jarmalka ayaa bahdilaad iyo niyad jab weyn ka soo gaadhay qaybihii dambe ee dagaalka, sidoo kalena heshiiskan Treaty of Versailles u arkayay mid lagu khiyaameeyay. Dowladda Jarmalka ayaa aaminsaneyd in nabaddu nooc kastaba ha ahaatee ay tahay nabad aan guul la socon. Markii sanado uun laga joogay heshiiskii Treaty of Versailles, waxaa hawada isku shareeray nacaybka ka dhashay shirkaasi iyo hogaamiyayaashii ka dambeeyay heshiiskaasiba. 20 sano kadib shirkaas, waxaa sidaas ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunka oo dadka qaar aaminsan yihiin inuu sabab u ahaa Jarmalka iyo xulafadiisii oo heshiiskii Treaty of Versailles u arkayay mid aan dhexdhexaad ahayn. Khasaarihii dagaalkii koowaad ee adduunka. Dagaalkii koowaad ee adduunku wuxuu sababsaday ama ku naf waayay in ka badan 9 milyan oo askari. 21 milyan oo askari oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaadhay. Dadka shacabka ah ee ku naf waayay dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10 milyan oo qof. Labadii dowladood ee ugu khasaaraha badnaa waxay ahaayeen wadamada Jarmalka iyo Faransiiska. Labadan dal ayaa 80% raggii dalkooda ee da'doodu u dhaxaysay 15 ilaa 49 u diray dagaalka. Haddii aad ku cusubtahay channelkeena, fadlan subscribe si aad u hesho muuqaaladan soo gelin doono mustaqbalka. Haddii aad ka mid tahay asxaabteena, fadlan like wixii faalaana comment-ka nagu dhaaf, waad mahadsantahay.